xukunka maxkamadda marka xukunku dhawaaqdo waxa la farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu samayn xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysan Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareenada difaaca ee sumadeedu tahay 136 2024 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 lidna ku xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16 soona baxay 15 bisha 5 2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024 wabillahi tawfiiq maxkamaddu way xiran alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subax wanaagsan maxkamaddu waa furan tahay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaybteeda ciqaabta oo ka kooban 5 garsoore waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024 u fadhiisanaysaa gal dacwadeedka ay sumadiisu tahay 10 2024 ee u dhaxeeya eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud kuna eedeysan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo ay qareeno yihiin Cali Xalane علي محمد جبريل هي محمد عبد الورسامه midna ku ah qaranka Soomaaliyeed oo matalayo xafiiska qariiqaanka guud ee dawladda xafiiska xiraliyaha guud ee dawladda maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa maanta insha Allah taala go'aankeedii ku salaysnaa asbaabtii ay dhageysatay fadhigii koowaad ee dacwadan ee howlka kan ka qabsoomay 24kii bishii 8 2024 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة سرة جمهورية فدرالك الصومالية مركي أي سقط تدير ودرستي أرشيغا عبشرة أسباب تأذي سنها يرعتين تا قرينة الدفاع درستينا دود أفيدي أي كسو جديد محكمة سرة دالك هورتيدا عبشرة ونحر كيدوها كو إن عبشرة أي سلقويهين حرفها طاء يدا فقرة اللباد قلب كاللبا بقول صدن يلبا حيرك هبك عقابة الصوماليات oo sheegaya in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay markii ay dacwadan qaadaysay ama xukunkeedu ku xadgudbay sharciga ka gaabisay arrimo dacwada muhiim ah oo dhinacyada midkood ama maxkamaddu ay soo jeedisay xukunku aanu ku fadhiyin asbaab sharci ama asbaabta xukunka loo cuskaday aanay ku filayn laba in xukunka maxkamadda rafcaanku uu leeyahay 3 waji oo iskhilaafsan iskana hor imanaya dhanka dabaqada sharciga macnawiga shariicada islaamka iyo madhabka shaafiiciga ee dalkeena looga dhaqmo saddex in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo aan dib u dhageysan wixii maxkamadda gobolka ka dhacay taasoo khilaafsan faqradaha baca ee faqradda labaad ee qodobka 231 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed afar in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir aanay soo koobin dhacdada iyo qodobada sharci ee uu ku saleysan yahay xukunku saafna ay ku khilaaftay qodobka 121 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed shan in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir lagu dhisay qariino oo cadeynaan toos ahayn male iyo loo qaateen taasoo khilaafsan qodobada 110 163 oo xafiiska xiraalinta ku waajibinayay in si aan shaki maangalay ku jirin ugu cadeeyaan dambiga eedeysanaha lix in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir khilaafsan yahay dhammaan afarta madhab ee fuqahaada islaamka
فقرة الصدحات قضوة بقول يتدوالي الدستور كميل كارجي جمهورية فدرالك الصومالية هي فقرة اللباد قضوة كالصدحات حيرك نظام كالكرسورك تضوبة إن لوايي عدين حكم كاللغو لسو ساترتيد أي هايدين لفوليو قسامة أما دارتا كدالتا لوسكا أما تونكا iyadoo ehelada dhibanaha konton daarood la marinayo haday diidana dhinaca eedeysanaha loo wareejiyo maxkamadda sare markii ay si mug loo daristay jawaab celinta dacwadoogista oo nuxurkeedu yahay in dhammaan arrimaha cabashada saldhigga looga dhigay aanay sharciga waafaqsanayn maxkamadda sare markii ay dul istaagtay daristayna xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee la durayo ee sumadiisa iyo taariikhtiisa kor lagu soo sheegay maxkamadda waxa uu cadaatay kow in qareenada difaacu aanay si cad u iftiimin sida xukunka loogu dhisay arrimaha iskhilaafsan ama isburinaya ee ay ku doodeen in xukunku ku dhisan yahay laba in xarfaha A B C faqradda labaad ee qodobka 231 xeerka ciqaabtu عروم محكمة رفعان كقبل كبنادير كواجبين إن يديو لجيسته ضمان وحي كدعي محكمة قبل كبنادير فالسو اختيار الصينيو إن إسلاس يلي كرتو عدي ما عصب قاضي كرتو مرق رلو لجيستين يديو لجيستين كرتو مركو وارين عصب كمرق فرجو محكمة رفعان كقبل كبنادير يوادي كسريسة أوداس اختياري ayay dacwadan si dhamaystiran dib ugu dhageysatay cadeymo cusub qaaday si ay u gaadho go'aan cadaalad ah saatirteed maxkamaddu ma khilaafin faqradda ay qareenada difaacu cabashadooda saldhigga uga dhigeen saddex in si waafaqsan xarafka daa faqradda koowaad qodobka 221 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir si cad u soo koobay dhammaan dhacdooyinka dacwadda qodobada sharci aayadaha quraanka iyo axaadiista xukunka lagu dhisay saas maxkamadduna aanay khilaafin qodobka in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir aan khilaafin faqradda saddexaad qodobka 107 dastuurka ku meel gaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo faqradda labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka sababtoo ah wuxuu xukun ku qotamaa asbaab sharci oo maangala shan in xukunku aanu khilaafin qodobada 110 163 xeerka habka ciqaabta eedeysanuhana si aan shaki maangalihi ku jirin dambiga loogu cadeeyay in heerka cadaynta aanu shaki maangalihi ku jirin aanu micnaheedu ahayn cadayn gabi ahaanba shaki ka maran balse ay tahay cadaymo xoogan qancinaya qalbiga qofka maangalka kana saaraya sugnaan la'aanta ku riixi karta inuu rumaysto si ka duwan daliilada dacwadoogista lix in dooda in qariino oo kaliya loo hayo eedeysanaha aanay ahayn mid sharciga iyo dacwadan waafaqsan waayo in faldambiyeed gudihiisa dhacay eedeysana Sayid Cali geystay dhaawac culus ka soo gaaray horiisii Luul Cabdi waxa garsoore hortiisa si iskiisa uga qirtay eedeysana Sayid Cali saastarteed in faldambiyeed dhacay eedeysanuu yahay qofka falka geystay dhaawac culusna dhibanaha ka soo gaaray midna uma baahna in qariino lagu cadeeyo todoba in marxuum Luul Cabdi u dhimatay dhaawacii dabka ka soo gaaray oo 90% jirkeeda gubay gaadhay la kabka saddexaad ee jirkeeda chance-ka badbaadaduna 10% kaliya ahaa takhaatiirtii gacanta ku hayay ayaa maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir koor cadeeyay waana tahay u cuskatay in falka gubista iyo dhimashada dhibanaha uu xiriir toos ah ka dhaxeeyo sideed in arrinta la xiriirta qasdiga ama ujeedka faldambiyeedka laga leeyahay aan marna lagu sugi karin markhaatiyo tiradoodu haba badnaatee maadaama cid aan Allah subhanahu wa ta'ala ahayn aan ogaan karin waxa qalbiga qofka ku jira taas bedelkeeda qasdiga ama ujeedka dambiga laga leeyahay waxa lagu sugi karaa oo kaliya in qofka falka geystay qirto inuu si kas ah falka u galay ama in lagala soo dhaxbaxo
duruufaha ku xeeran dhacdada eedaysanaha habdhaqankiisa tallaabooyinka uu qaaday falka ka hor falka dhexdiisa falka kadib goorta uu falka geystay sida uu falka u geystay iyo aaladda uu falka ku geystay in eedaysanuhu qirtay in isaga iyo horihiisii Dhibanaduul Cabdicasiis Maxamed oo muran iyo ismaandhaaf dhex maray murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu cadhooday baxay soona gatay shidaal gubay goor habeen ah qol ka mid ah guriga ay ku noolaayeen isaga horihiisii caruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalkii uu soo gatay markii uu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u cadaysay inuu falka ku galay si kasa si dhammaystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto il kasa intaas waxaa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada 138 iyo 143 xeerka habka ciqaabta ayay eedaysanaha ku heshay inuu geystay il kasa 9 qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado kaliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jira tuhun laga qabo inay dilka geysatay cid deegaanka oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayay cidna lagu tuhunsan yahay taas bedelkeeda waxa dhacay fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunka 10 in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareenada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda 2 qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay xukunka maxkamadda marka xukunku dhawaaqdo waxa la farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu socon xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysane Sayid Cali Macallin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareenada difaaca ee sumadeedu tahay 136 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 lidna ku xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16/2024 soona baxay 15 bisha 5 2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024 wabillahi tawfiiq maxkamaddu waxay